Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada wararka Somali News qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena hadii ee baydmar waxaa qayb ka ah madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo iska diiday qorshe ay wadeen xubno wakiil ka ahaa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo lagu xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo maamulka uu hogaamiyay madaxweyne Lafta Gareen oo loo soo jeediyay eedayn xoog leh wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Soomaaliya iyo xubno ka mid noqonaya aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka midowga Afrika dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka oo ka wada hadlaya wajiga labaad ee dooda ku saabsan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Mareykanka oo soo bandhigay khatar xoog leh oo uu sheegay in uu qorsheynayo Ruushku si uu weerar ugu qaado dalkaasi Ukraine digniinna ka soo jeediyay qorshaha Ruushka ee weerarka dalkaasi Ukraine qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeena hadii ee baydma daawadayaal soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa maanta lagu qabtay doorashada 3 kursi oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland kuraastan ayaan loo gelin wax tartan ah waxaana 3 xildhibaan ee soo baxay oo mid ka mid ah ay tahay gabar u tanaasulay musharaxiintii la tartami lahaa Dr. Maxamed Cilmi Ibrahim oo loo qaaday cod gacantaag ah ayaa ku guuleystay kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 218 wuxuuna helay 98 cod waxaana ka aamusay 6 ka mid ah ergadii codeynaysay sidoo kale kursiga labaad ee maanta la doortay ee tirsigiisu uu yahay 270 waxaa ku soo baxay Cabdiwahaab Cabdi Cumar oo helay 97 cod kadib markii ay u tanaasushay musharax Muna Axmed Diiriye oo kala tartami lahayd kursigaasi kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu yahay Hob 226 waxaa sidoo kale ku guuleysatay Maryan Maxamed Ciise waxaana iyana u tanaasushay Khadiija Cali Warsame oo kula tartami lahayd doorashada kursigaasi Maryan Maxamed Ciise ayaa heshay 95 cod kadib cod gacantaag ah oo loo qaaday waxaana doorashadeeda ka aamusay 3 ka mid ah ergadii codeynaysay sida uu shaaciyay guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee SEED ee Somaliland dhammaan 3 xubnood ee soo baxay ayaa loo xiray kuraasta loo doortay maanta taas oo xiisabeel ku riday doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maadaama aan wax tartan ah loo gelin doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sida darle ku socota waxaana qorshuhu uu yahay in la soo gabagabeeyo 25 bishan Febraayo ee aynu ku guda jirno ee sanadkan 2022 dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in muddo saacadaha halkaasi lagu xiray wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed kaasi oo hoteelkii uu deganaa laga baxay wararka ayaa sheegaya in saacado kadib la sii daayay wasiir Cabdirashiid oo ay hoteelkii uu deganaa ka soo wateen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka Koonfur Galbeed siideynta wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa timid kadib cadaadis la saaray maamulka madaxweyne Lafta Gareen iyo sidoo kale dadaallo ay sameeyeen odayaasha dhaqanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Cabdirashiid Maxamed Cabdullaahi ayaa shalay tagay magaalada Baydhabo isaga oo u sharaxan kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 197 si uu ololihiisa doorashada halkaasi uga bilaabo xarigiisa ayaa loo sababeeyay inay ka dambayso siyaasad maadaama uu ka mid yahay siyaasiyiinta ka soo horjeeda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ilaa iyo hadda saraakiisha laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaasi oo ku aadan xariga loo geystay wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale weli kama uusan hadlin dhankiisa wasiir Cabdirashiid qaabka uu u dhacay xarigiisa iyo weliba siideyntiisuba Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirka hore ee gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyay waxa uu ka maqnaa dalka wuxuuna ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya isaga oo haatan dib u soo laabtay dalka si uu qayb uga noqdo loolanka loogu jiro kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 197 deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay markana Jowhar
sida ay ogaatay warbaahintu waxaa guuldarro kusoo dhammaaday safar maalmo qaatay oo jowhar ay ku tageen xubno ka wakiil ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. xubnahaas oo ay hogaaminayeen wasiiru dowlaha gaadiidka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Dheere iyo wiil gacan yare u ah Fahad Yaasiin oo lagu magacaabo Anas ayaa kusoo guuldaraystay qorshe ay doonayeen inuu fuliyo madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe. sida aynu xogta ku helnay xubnahan oo wakiil ka ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa Cali Guudlaawe ka dalbaday in lasoo hormariyo doorashada 5 ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo uu ku jiro kursiga Fahad Yaasiin uu u tartamayo ee haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Fahad ayaa sheegay in qorshihiisu uu yahay in sanadkan uu u tartamo kursiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. ilo xog ogaal ah oo aad ugu dhow xafiiska madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweyne Guudlaawe uu diiday qorshaha ay ku tageen xubnahaasi magaalada Jowhar, isla markaasina ay ka wadeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Cali Guudlaawe ayaa la sheegay inuu ku dooday in qorshahaasi uusan fulin karin isaga oo aan tegin magaalada Beledweyne, sidoo kalena aysan dhammaan doorashada kuraasta golaha shacabka ee taalla magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. xogaha ugu dambeeya ee aan ka helayno magaalada Jowharna waxa ay sheegayaan in xubnihii uu soo wakiishay Fahad Yaasiin ay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho iyagoo aan wax natiijo ah ka sidin Cali Guudlaawe. dhinaca kale xubno ka tirsan kooxda ololaha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa jimcihii shalay ahaa waxa ay tageen magaalada Jowhar, kuwaas oo qorsheynayay in ay la kulmaan madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe, isla markaasina ay kala hadlaan kuraas dhowr ah oo ay doonayaan in ay ku soo baxaan saaxiibadooda siyaasadda, isla markaasina ay qayb ka noqdaan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo lagu soo dooranayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. dhanka kale midowga Afrika, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa ku shirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaano ATMIS ayaa bedeli doona howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM oo waqtigiisu uu dhamaanayo 31 bisha Maarso ee sanadkan 2022. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in qorshaha loo soo jeediyay uu diiradda saari doono sidii loo hirgelin lahaa mudnaanta qorshaha kala guurka ee Soomaaliya, kaasi oo loo soo gaabiyo STP waa istiraatiijiyad dhammaystiran oo ay dejiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo la howlgalayaasheeda si ay ugu jiheeyaan in si tartiib ah mas'uuliyadda amniga Soomaaliya loogu wareejiyo ciidamada ammaanka Soomaaliya. sida ay soo jeedinayaan kooxaha farsamada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika, waajibaadka howlgalka cusub ee midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya wuxuu noqon doonaa in la taageero dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay u fuliso ujeedooyinkeeda istiraatiijiyadeed ee mudnaanta STP, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Anita Kiki ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay ka go'an tahay in si guul leh dib u habeyn loogu sameeyo AMISOM iyada oo loo marayo wada tashi, wada shaqayn iyo isku dubarid. qorshaha kala guurka ee Soomaaliya ayaa diiradda saaraya sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa isbeddel amni oo dhammaystiran. qaramada midoobayna waxa ay ka go'an tahay in la taageero hanaankan ay Soomaalidu hormuudka u tahay. waxaan rabnaa in aan hoosta ka xariiqno in dib u habeynta AMISOM ee howlgal cusub ay qayb muhiim ah ka tahay dadaalka, ayay tiri Anita Kiki. 20 bishii Febraayo ee sanadkii 2007 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u fasaxay midowga Afrika in Soomaaliya ay geyso ciidamo ka howlgala nabad ilaalinta, isla markaasina qaadanaya muddo 6 bilood ah si loo taageero dowladda, balse howlgalkaasi ayaa dheeraaday oo qaatay muddo ku dhow 15 sano. ugu dambeynna Ruushka ayaa qorsheynaya qorshe been abuur ah oo ugu marmarsiyoonayo duulaan uu ku qaado dalka Ukraine, isagoo si been abuur ah ugu eedeynaya ciidamada Ukraine inay weerar ku qaadeen kooxaha gooni u goosadka oo Ruushku taageero amaba Ruushka laftiisa, sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka Mareykanka. arrimaha la sheegay in Ruushku uu ka fiirsanayo inuu soo
soo bandhiga waxaa ka mid ah baahinta weerar been abuur ah iyadoo sawiro muuqaal ah oo ku aadan qaraxyo iyo falal ay ka dhasheen khasaare badan uu abuurayo islamarkaasina uu Ruushku uga jawaabayo falalkaasi qiilna uu ugu helayo weerarkiisa dalkaasi Ukraine. Mareykanka iyo NATO ayaa ka walaacsan tirada badan ee ciidamada Ruushka ee ku sugan meel u dhow xadka Ukraine uu la wadaaga dalkaasi Ruushka. Ruushka ayaa beeniyay inuu qorsheynayo inuu duulaan ku qaado dalkaasi isagoo sheegay in ciidamadiisu ay halkaasi u joogaan oo kaliya dhoolatus wuxuuna ilaa iyo hadda gaarayaan ciidamadiisa halkaasi jooga 100,000 oo askari. Xiisadan ayaa ku soo beegantay 8 sano kadib markii Ruushku uu la wareegay gacanka koonfureed ee Ukraine iyo Crimea oo uu taageerayay kacdoon dhiig badan uu ku daatay oo ka dhacay bariga gobolka Donbass. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka la sheegay in ay qorsheynayaan laamaha ammaanka ee Ruushku uu muujin doono muuqaalada dadka rayidka ah ee lagu laayay magaalada Donbass ee bariga Ukraine si ay u abuuraan caro ka dhalata maamulka Ukraine. Tani waxaa markaasi loo isticmaali karaa in loogu marmarsiyoodo weerar lagu qaaday Ukraine, ayay yiraahdeen saraakiisha Mareykanka ee dhanka sirdoonka. Qorshaha waxaa ka mid noqon kara in la sameeyo oo la duubo weerar been abuur ah waxa uu muujin doontaa meydadka iyo meelaha la burburiyay qalabka militariga ee Ukraine ee been abuurka ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu ay sameeyeen iyo jilayaasha ciyaaraha baroordiiqyo ku hadalka afka Ruushka, ayay yiraahdeen saraakiisha sirdoonka Mareykanka ee soo bandhigay qorshahan uu maagan yahay Ruushku si uu ugu duulo dalka Ukraine. Laakiin saraakiishu waxa ay carabka ku adkeynayaan in tani ay tahay mid ka mid ah fursadaha uu Ruushku ka fiirsanayo